dadweynaha ku dhaqan magaalada Cadaado ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa ay ku jireen dabaaldeg ay u sameeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo u jeediyay hambalyo iyo talooyin kala duwan dadweynaha oo isku soo bax ku sameystay xarunta dawladda hoose ee magaalada Cadaado ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa Soomaaliya waxaan dhahaynaa walikum mudane madaxweyne waxa ku soo dhaweynay shacabka reer waxaan joognaa deegaanka Cadaado magacaygu waxa waa Abdidoon Kadiye ma sha Allah hambaliyo waxaan leenahay Farmaajo guuleyso waliga gadaal ha mari garasho dheer oo dalkaaga gundaha ku haa magacaygu waa Suudi Maxamed Xuseen waxaan taaganahay degmada Cadaado taageero waxaan taageersanahay madaxweynaha cusub maanta waa maalintii xorriyadda Soomaaliya ciidamada shisheeyaha wadankeena ka shaqeynaya waxa ku filan dadkeena nin walba waxa dalkiisa waxa nooleeyo nin walba dadkiisa dalka nooleeyo annaguna waxaan jecelnahay dadkeena inaan nooleeyno waxaan leenahay kugula talinaynaa maanta ummadda Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan daafaha caalamka ee xabsiyada ku jira ee badaha ku baabaay ee dhibaataysan inaad xaqiijiso xornimadeena qodobka koobaad wuxuu yahay madaxdii u dhalatay degmada Cadaado oo wadanka Belgium ku xiran inuu si degdeg ah u soo daayo waan ka codsanaynaa baarlamaanka ka jawaabay dadkii codsigoodii adigana waxa laga rabaa sida lagu doortay inaad xilkaaga uga soo dhalaashid ummadda Soomaaliyeed daraf inaad si cadaalad ah oo xaqaaniya aad u maamushid gudoomiye ku-xigeenka magaalada Cadaado Nuur Yaro Xeele ayaa halkaas asna ka hadlay Bismillahir Allahu Akbar dhamaan reer Cadaado oo maanta fatasay ku jira oo ay meel walba ay maanta ka wadaan fatasay ka wadaan oo ay gaariyaan ilaa 50 meelood hambalyo leenahay madaxweyne Farmaajo soo dhawow taas waa intii hambalyada ahayd soo dhawow aan leenahay waxaan rabnaa marka inaan u gudubno hab socodkii bulshada waxaan doonaynaa madaxweyne Farmaajo maadaama mataqaana Soomaaliya oo dhan laga hambalyeeyo oo xalay aan la seexan maantana aan la seexan waxaan rabaa ummadda inaad horseeddo bulsho weyn mataqaana cadaalada ummadana waxa deeqda cadaalada deeqda tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Cadaado waxa si xawli ah uga socday dabaaldeg balaaran dabaaldega waxa kamid ahaa oo ugu horeeyay ciidamada amniga oo xabado cirka u riday iyagoo ula jeeday dabaaldeg ay u muujinayeen madaxweyne Farmaajo Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado.